بسم الله الرحمن الرحيم رمضان wanaagsan daawadayaal waa ayaan la geedii afraxo idin socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad wadanka TV ku daawad doontaana waxa kamid ah waxa ku jira macdan naadir ah Mareykanka oo qiray in dalal ay Soomaaliya ku jirta ay yihiin mustaqbalka adduunka Turkiga oo dayuuradii labaad oo daawad sida u diray Soomaaliya Ruushka oo Syria ku siray hanaan difaacireed ah oo aan saaxi u shaqaynaynin Kim Jong Un oo muddo kadib fagaara ka soo muuqday Trump oo sheegay in uu hayo cadeynta halka dhabta ka yimid cudurka corona dacwad ka dhan ah danjiri James Iswan oo loo gudbiyay golaha qaramada midoobay dadka degan Maka oo 70% oo ku dhacay cudurka corona booliska Sweden oo qabtay dad Sweden ku soo galay qaab aan abad hore loo arag iyo wasiir isagoo cunugiisa xambaarsan ka qayb galay shir iyo waliba hadalhayn badan oo ka dhalatay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka ku daawad doontaan waa 2 May 2020 iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo fidsan haddii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program baleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo galino haddii saaxiibadeena nagu tixana ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tana hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa waraysi dheer uu siiyay hay'adda cilmi baarista ku sameeysa arrimaha argagixisada ee Competence Center ayaa ka hadlaya arrimo fara badan CTC ayaa danjiraha weydiisay sida uu arko tartanka ay awoodaha waaweyn ay ugu jiraan guud ahaan qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika qabyaalada Soomaalida la degtay iyo waliba dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Yamamoto ayaa yiri ma waxa ay kula tahay in ay dan ka leeyihiin Afrika iska ilow dan kama laha waxa ay kaliya ay doonayaan waa kheyraadkeeda sababtu waxa ay tahay kheyraadka waxa uu furo u yahay horumarkooda dhaqaale gaar ahaan Soomaaliya waxa aan doonaynaa in aynu xasilino si aysan u noqonin xarun argagixisa ama meel soo saarta qaxooti caalami ah inaga quwadaha waaweyn u sheegayna in aysan kheyraadka ka dhamaysan amaba aysan ka wada dhuuqin qaaradda waayo ujeedkoodu waa in aysan Afrikaanka kheyraadkooda in badan ka faa'iideysan geesta kaleetana afhayeenka madaxweynaha Turkiga Ibrahim Kalin ayaa sheegay in Turkiga dayuuradii labaad oo sida saanad caafimaad lagula tacaalaya cudurka corona ay u duulinayso Soomaaliya dayuuradan oo durba la sheegay in ay u duushay dhanka Soomaaliya ayaa sida agabyo isugu jira kuwa lagu baaro cudurka corona maasgarayaal iyo waliba agabyo kale oo asaasi u ah la tacaalida cudurkan Turkiga ayaa duulimaadkani noqonaya kiisi labaad oo Soomaaliya u diro tan iyo dilaaci durayga cudurka corona waana dalkii kuwad oo sidaas sameeya wuxuu 17 bishii April Muqdisho ka dejiyay agab isugu jiray maasgarayaal daaweysan suudad gaashaaman iyo kuwa wax lagu baaro geesta kale tana ciidamada Syria ayaa cambaariyay waxgalnimada gantaalaha uu Ruushka sameeyo ee S300 kuwaas oo ay sheegeen in ay waxba ka qaadi laayihiin dayuuradaha Yahuuda sida uu wariyay Afia Baro ciidamada Syria ayaa Ruushka gaarsiiyay in xitaa raadarka la socda S300 iyo hanaanka dabxirka sameeya ee Pantris S ay waxba ka tari laayihiin gantaalaha Kruuska ee Israa'iil hanaanada kale ee Ruusameega ah ee daafac cirka ayaa la sheegay in ay yihiin dib u socod huban sida S125 oo iyo waliba Agra raadarada shaqeynaya ee ay haatan Syria haysato ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa uu Shiinuhu siiyay oo isagu sameeyay sida raadarka fogaan aragga ah ee YJ27 iyo waliba hanaanka JYL oo weheliye LLQ120 oo isagu arka bartilmaamyada jooga hoose ku socda marka qura ay gantaalaha Ruushka wax u tareen waa marka ay wax ku arkaan raadarada Shiinayska ah oo la sheegay in ay sabab u noqdaan in ay arkaan dayuuradaha Israa'iil taasoo marka ciidamada Syria ka caawisa in ay si dhaanta u adeegsadaan gantaalaha Ruushka waxaana xalku haatan u muuqdaa in ay israacinayaan labadooda ma aha markii ugu horeysay hubka Ruushka wax u tari waaya Syria balse waxa ay sidaan oo kala dhacday xilliyadii bacfiga ee 1960 ilaa 1980 xilligaas oo ay Sofiyeedku hubin jireen Syria oo dagaal lagaga adkaaday kula jirtay Israa'iil Ruushka ayaa hore Israa'iil uga aqbalay in aanu Syria siinin gantaalaha difaaca cirka balse waxa uu mowqifkaasi bedelay markii ay Yahuudu ay ka soo riday dayuurad basaas ah oo isagu lahaa hase yeeshee Israa'iil ayaa markii ay doonto haatan iska duqaysa xitaa caasimada Dimashq geesa kaleetana Kim Jong Un ayaa dib fagaaraha uga soo muuqday markii ugu horeysay muddo 20 maalmood ah sida ay soo tabisay warbaahinta qaranka Kuuriyada Waqooyi wakaalada wararka ee KCNA ayaa sheegaysa in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xariga ka jaray warshada samaysa qalabka bacriminta ee beeraha warku wuxuu intaasi ku darayaa in dadkii ku sugnaa warshada ay aad u farxeen markii ay arkeen hogaamiye Kim Jong Un kasoo muuqashadani fagaaraha ayaa tii ugu horeysay tan iyo 12 April waxa ayna taasi sababtay in caalamka la isla dhaxmaro
warar ku saabsan in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsanayn. wararka la isla dhex maraya ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guuradii ka soo wareegtay dhalashada awowgii uu ku beegneed 15 Abriil 2020. Kim Jong Un weligiis kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgii, wayna iska muuqatay in uusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qaybgali waayo. Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaasi ayaa waxa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim, waxaana sidoo kale maalmihii la soo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi uu galay qalliin dhanka wadnaha ah. waxaa sidoo kale soo baxday warar kale oo sheegaya in Kim Jong Un uu nool yahay, balse ugu dambeyntii waxa uu fagaaraha ka soo muuqday maanta. geesta kaleetana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khamiistii ugu hanjabay Shiinaha canshuur cusub isagoo sheegay inuu arkay caddeemo muujinaya in cudurka corona uu ka yimid shaybaar ku yaala magaalada Wuhan. cudurkan ayaa waxaa la rumaysan yahay in sanadii tagtay uu ka soo bilowday suuq xoolaha lagu qalo oo ku yaala magaalada Wuhan, hase yeeshee waxaa jira warar suuqeed sheegayay inuu ka soo baxsaday shaybaar sir ah oo ku yaala Wuhan. mar wax laga weydiiyey haddii uu arkay wax caddeemo ah oo lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in cudurkani uu ka soo bilowday macadka cudurka ee Wuhan, ayaa Trump waxa uu ugu jawaabay haa waan hayaa. mar wariyaasha ay ku cadaadiyeen sababta uu taasi ugu kalsoon yahay ayaa Trump waxa uu yidhi taasi kuma sheegi karo. Trump ayaa isku dayaya inuu sida ay Shiinaha ula tacaalin dilaaca cudurkani ka dhigo arrinta ugu weyn ololihiisa dib u doorashada. mar wax laga weydiiyey inuu nasaqi doono deynta ay Shiinuhu ku leeyihiin Mareykanka, Trump ayaa waxa uu ku jawaabay inuu taasi sidoo kale uu samayn karo. taasi waan samayn karaa, balse xitaa lacag kale oo badan ayaan ka qaadi karaa aniga oo saaraya canshuur dheeri ah, ayuu yidhi madaxweyne Trump. inkastoo bishii January ay heshiis ka gaareen dagaalkii ganacsiga, ayaa haddana weli 3 meelood 2 meel canshuurihii ay isku soo rogeen Beijing iyo weliba Washington ay weli yihiin kuwa halkoodii jooga. weerarka cusub oo Trump uu ku qaaday Shiinaha ayaa imaanaya iyadoo xog cusub ay muujinaysa in cudurka corona uu horseeday in 30 milyan oo qof ay ku shaqo waayeen dalka Mareykanka sabab la xiriira xayiraadaha la soo rogay. shaqo la'aanta iyo weliba dhaqaale xumada ayaa aad u wiiqaysa rajada madaxweyne Trump oo ka qaba in dib loogu doorto xafiiska doorashada dhacaysa 3 November. geesta kaleetana golaha isbeddeldoonka Jubbaland ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u diray dacwad ka dhan ah ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswan. qoraal ay golaha ammaanka u direen ayay ku sheegeen in tan iyo markii Iswan uu madax ka noqday xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya bishii May 2019 ay luntay sharaftii iyo weliba aaminaadii lagu qabay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen. waxa uu sheegay in Iswan uu ceersanayay danaha dhinacyo gaar ah kuwaas oo horseeday dagaalo isla markaana ka hor imaanaya ujeedooyinka iyo weliba mabaadi'da axdiga ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo weliba xafiiska uu u dhaartay. golaha ayaa sheegay in warqadii ka soo baxday xafiiska UN Summit 28 Abriil ee lagu taageeray heshiiska Axmed Madoobe iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday ay tahay go'aan uu ku taageerayo murashax ku guuleystay hanaan doorasho aan dhammaystirnayn oo dhacday bishii Agosto 2019. golaha ayaa sheegay in Iswan uu la saftay 4 nin oo ay sheegeen in ay isku beel yihiin oo heshiis gaaray isagoo iska indhatiraya 32 kale ee beel oo wax ka dega Jubbaland. sidaas darteedna ayay yiraahdeen golaha Iswan hadda kadib lagama soo dhaweynayo deegaanada Jubbaland, waxaana codsanaynaa in laga qaado xilka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. geesta kaleetana tijaabooyin dhawaan la sameeyay ayaa muujinaya in heerka faafitaanka cudurka corona ee dalka Sacuudiga oo aad uga sareeyo sidii marka hore la rumaysnaa. ila wareedyo caafimaad ayaa sidaas u sheegay wargeyska Middle East Eye. sida ay ku warameen saraakiil caafimaad oo Sacuudiyaan ah, ku dhawaad 70% dadka degan magaalada barakeysan ee Makka ee 2 milyan ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhacay cudurka corona sida lagu ogaaday tijaabo magaalada laga sameeyay, iyadoo dadka aan loo kala soocin inay isku arkeen astaamaha cudurka iyo in kale. Sacuudi Carabiya ayaa waxa ilaa iyo hadda laga diiwaan geliyay 21,000 oo kiis, halka ay dhimashadu tahay 157 ruux. heerka faafitaanka cudurka corona waxa uu 3 amaba 4 mar ka badan yahay tirada la shaaciyay, ayuu ila wareed u sheegay wargeyskaasi Middle East Eye. 2 Abriil Sacuudi Carabiya ayaa bandow 24 saac ku soo rogtay labada magaalo ee barakeysan ee kala ah Makka iyo Madiina, taasoo qayb ka ah dadaal lagu xakameynayo faafitaanka cudurka corona. bandowga ayaa la qafiifiyay 26 Abriil
kadib bilowgii bisha Ramadaan, hase yeeshee midka Maka ayaa weli sidiisa ah, iyada oo Maka la saaray xanibaaddii ugu adkeed. waxaa la rumaysan yahay in magaalada barakeysan ay tahay xudunta faafitaanka cudurka corona ee dalka Sacuudiga. xajka sanadkan oo ku aadan bisha Julaay ayaa la rumaysan yahay in la joojin doono amaba waqtigiisa la soo gaabin doono. geesta kaleetana booliska Sweden ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen dad qaab cusub ku soo galaya Sweden, iyagoo saaran saxiimad yar oo kuwa la buufiyo ah oo ay ka soo xadeen dhanka Denmark, taasoo ah kiiskii ugu horreeyay oo nuucan ah tan iyo markii Sweden ay soo rogtay in dadka la weydiiyo kaarka aqoonsiga tan iyo 4 January sida ay sheegtay Kim Hill oo booliska u hadashay. ciidamada samanta bixinta Norway ayaa markii ugu horreysay doonidan arkay isla markii ay ka soo baxday Denmark, gaar ahaan Helsingor, kuwaasoo wargeliyay ciidamada xeebaha ilaaliya ee Sweden sida ay sheegtay Hill. markii booliska Sweden ay ogaadeen deeto way qabteen markii ay ku soo xirteen magaalada Helsingor ee dalka Sweden, iyadoo labada nin oo midkood ahaa kii wax tahriibinayay iyadoo sidoo kale lacag lagu qabtay. labada nin ayaa kala 24 jir haysta dukumeentiyo Norwegian ah iyo weliba nin kale oo aan dukumeentiyo haysan balse 27 jir ah. kooxaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa dowladda Sweden ku dhaliilay in soo roogista kaarka aqoonsiga xuduudaha la isku weydiinayo ay sababtay in ay dadku hab halis ah ay ku soo galaan dalka. Sweden oo ay ku nool yihiin 9.8 milyan oo ruux ayaa sanadkii tagay qaabilay 163,000 oo ruux oo qaxooti ah, taasoo ka badan dal kasta oo kale markii la eego inta ku soo aadaysa milyankii. balse tan iyo 4 January markii la bilaabay in kaarka la isweydiiyo waxa ay 10,000 oo toddobaadkii imaan jirtay October iyo November ay hoos ugu dhaceen 1,500 ruux. ugu dambeynna sawir laga soo qaaday wasiirka waxbarashada dalka Sierra Leone ayaa baraha bulshada hadalhayn badani ka dhaliyay kadib markii uu shir kaga qayb galay isagoo dhabarka ku sita wiilkiisa yar. Monina Senga oo ah wasiirka waxbarashada dalka Sierra Leone ayaa qaab muuqaal ah uga qayb galay shir, waxaana wasiirka xilligaasi uu shirka ka qayb galayay dusha oo ku xambaarsanaa wiil uu dhalay oo 10 bilood dhalan. wasiirka ayaa tallaabadan u qaaday ku sheegay in ay tahay mid wanaagsan oo la doonayo in ragga kale ay sameeyaan, waxa uuna tilmaamay in ay muhiim tahay in ragga ay caawiyaan xaasaskooda marka ay guriga joogaan. waxaan leeyahay saaxiibo badan oo aan weligood xafaayadaha ka bedelin carruurtooda, carruur badan ayayna leeyihiin, mana fahamsana sida ay arrintaasi suurtagal ku tahay, ayuu yidhi wasiirka waxbarashada Sierra Leone. sawirka laga soo qaaday wasiirka shirka ka qayb galayay isagoo cunugiisa dusha ku xambaarsan ayaana hadalhayn badani ka abuurtay baraha bulshada, waxaana dadka inta badan ay u muuqdeen kuwa aad u taageeraya tallaabada uu qaaday wasiirkan. ragga ayaa inta badani u badan kuwa ka faana caawinta xaasaskooda marka ay guriga joogaan, haba u badnaadaane ragga magaca leh sida siyaasiyiinta iyo ganacsatada, balse waxaa sidoo kale jira rag badan oo xilli walba gacan siiya xaasaskooda lana haya carruurta. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. intii aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tegaynaa guul iyo gobonnimo.